السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena waxaa kamida ciidamada Israa'iil ayaa weeraro iyo duqeymo hor leh ka fuliyay gudaha dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta dalkaasi. Iran ayaa sheegtay inay sii eegan doonin weerarada Israa'iil waxayna sheegtay inay si degdeg uga jawaabi doonto. xaaladda ayaa mar kale sii adkaanayso. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaa mid kamida wadaadada Yuhuudda ugu afka dheer ayaa waxa uu ka hadlay arintii ugu saameynta badnayd ee laga maqlo qof Yuhuudiya. ninkan waxa uu sharxay sababta Mareykanka uu Israa'iil u taageero. wuxuu leeyahay Kirishtaannimada darteed inoo taageerayaan. mana ahan buu leeyahay danay anaga noo danaynayaan. sababta ay u rabaan inaan Carabta iyo Falastiiniinta uga guuleysano Mareykanka dantiisa ku jirto. ninka waxa ma qariyo. sababtu maxay tahay? waxaan ku hayaa macluumaad iyo warbixin wax badan aad ku ogaan doontid sababta Yuhuudda iyo Kirishtaanka ay isu garab istaagaan. qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan idinku hayaa Iran ayaa cambaaraysay shirka ka dhacay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara. waxayna Iran shirkaasi ku tilmaantay inuu yahay shir qorshe siyaasadeed iyo fariin lagu gudbinayay. waxay sheegtay inaysan ahayn shir kii caadiga NATO iskugu imaan jireen. ujeedka ugu weyn Iran baa loo dan lahaa bay leedahay. waxaynu eegi doonaa sababta Iran shirkaasi u cambaaraysay. ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo iyo weeraro cusub ka wada koonfurta Lubnaan. Iran ayaa sheegtay weerarka Israa'iil ay wado inaysan sii eegan doonin. weeraradii ugu dambeeyay Israa'iiliintu ay ka fuliyeen koonfurta dalkaasi ayaa la sheegay in guryo dadweyne ay degan yihiin deegaano halkaas ku yaala koonfurta inay burburiyeen iyadoo lagu waramayo dhimashada iyo dhaawaca ee loo geystay dadka reer Lubnaan maalmihii ugu dambeeyay inay sii badanayso. Israa'iil ayaa la sheegay bishan iyo bishii ka horeysay oo kaliya dadka reer Lubnaan ay dishay inay 50 qof ku sii dhow yihiin iyadoo dhaawacana ay sii cagacagaynayaan boqolaal qof. dhinaca kale Israa'iil ciidankeeda weerarada ay ka wadaan koonfurta Lubnaan ayaa keentay in kumanaan kun oo reer Lubnaan iyo dad reer Falastiin oo horey Lubnaan dhexdooda ugu soo qaxay ama qaxooti ku dhex ahaa ayaa haddana mar kale qax kale ku jira gudaha Lubnaan. Iran waxa ay sheegtay weerarada iyo duqeymada Israa'iil ay wali ka wada Lubnaan in gabi ahaanba ay meesha ka saarayso heshiiskii Mareykanka iyo Iran ay wada galeen ee loo yaqaanay isfahamka Memorandum of Understanding is-afgarad. inkastoo heshiiskaasi isbuucan uu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dhammaaday oo uu baaba'ay, haddana war xalay uu soo saaray Mareykanka waxay sheegeen sida Al Jazeera iyo warbaahinta kaleba ay qorayaan inay diyaar u yihiin inay sii wadaan wada hadaladii oo ay doonayaan sida Al Jazeera ay qorayso page-kooda hore. waxay Al Jazeera leedahay warkan waxa uu soo baxay 7 saac ilaa 8 saac xilliga aan warkan akhrinayo. waxay leeyihiin technical talks with Iran continue, US officials say. qaar kamida madaxda Mareykanka ayaa waxa ay leeyihiin wada hadaladii farsamo ee la rabay in lagu hirgeliyo is-afgaradkii waa sii wadeena. macnaheedu waxa ay tahay waxa meesha ka baxay hadalkii Donald Trump ahaa wuu dhammaaday heshiiskii. waxa aad loo leeyahay Trump hadal buu ku dhawaaqaa haddana cabaar kadib Mareykanka hadal kale ka soo baxo isla iyagii ama isagii ay hadalkiisu burinayaan. dagaalkan waxay hadda sheegeen inay soo celiyeen oo dagaal toos Iran la galayaan. haddana waxay la taageen maanta technical talkski with Iran continue sii soconaya. wixii aad lahaydeen in yar ka hor wuu baabay. laakiin hadda cabsida weyn ee taagan ayaa ah in Iran ay ka careysan tahay weerarada Lubnaan ku socda oo aysan eegan doonin oo ay difaaci doonto dadweynaha reer Lubnaan. waayahay saaxiibada qiimiga leh xiisada iyo xaaladda taagan markaynu meesha uga gudubno intaynu u galin qodobka ku saabsan wadaadka Yuhuudeed ee sida yaab kale uga hadlay sababta Mareykanka Israa'iil ay u taageerto. bal aan eegno wasiirka tamarta Israa'iil Eli Cohen ayaa u sheegay telefishinka Israa'iil ee janaalka 14aad wuxuu leeyahay waa inaan la shaqeynaa Mareykanka
si looga hortago in Turkigu helo hub casri ah waa inaan ku adkaysanaa in xulufadeenna ugu weyn oo ah Mareykanka uu sii ilaaliyo Israa'iil inay noqoto dalka kaliya ee gobolka oo leh awoodda military ee ugu sareyso ana wuxuu leeyahay waa inaan anaga sii ahaana awoodda ugu sareyso ana Turkiga yuusan helin hubka Mareykanka sida diyaaradda F-35 oo kale oo kamida diyaaradaha casriga ah aan ka hortagno ilaan Mareykanka wuxuu sheegay Ankara shirki NATO Trump uu kaga qayb galay Trump ayaa ku dhawaaqay amarna ku siiyay xogeyihiisa arrimaha dibadda iyo golihiisa wasiirada in laga shaqeeyo in Turkiga laga qaado cunaqabataynta saaran iibsashada diyaaradda F-35 sababta loo saaranay ahayd maadaama ay soo S-400 Ruushka uu ka haysto nidaamka Ruushka in kaas haduu burburiyo kaliya loo ogol yahay ama uu celiyo laakiin hadda Trump ku dhawaaqay in laga qaaday cunaqabataynta marka Elin Cohen ninkan hore wasiir kale xilal kala duwan u noqday usoo qabtay oo kamid wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu noqday wuxuu leeyahay aan ka shaqeyno in Turkiga uu sanbooska naga qaadan wuxuu intaa ku daray sidoo kale waa inaan saldhigyo ciidan ka sameysana Suuriya maadaama Turkiga halka uu ku leeyahay saldhig iyo ciidan ana wuxuu leeyahay Turkiga meel kastuu tagno uu galo aan ka daba galno cabsi weyn hayso ninka wax Israa'iil hadda waxa leeyahay walwalka ugu weyn ma ahan Iran ma ahan waa Turkiga waayo Turkiga Pakistan Sacuudiga dalal muslimiin isku keenaa xulufaysi wada awood balaaran dhisa naatana qayb u ka yahay hadda shirki NATO mar kale waxa hoosta laga xariiqay in dal NATO kamid hadii la weeraro in loo aqoonsado sharciga NATO la dhaqan galiyo ee qodobkiisa labaad ee dhigay in dalalka NATO dhan la weeraro in ay u dhigmaan waxa jirtay xogayaha guud ee NATO Rutte oo la weydiiyay in Turkiga iyo Israa'iil ay isdagaalayaan wuxuu yiri ma haday dhacaan maxaa sameeynaysan bal ileen reer galbeedka dhan saaxiib bay leeyihiin Israa'iil iyaga meesh ku hay Turkiga iyo Israa'iil de isdagaalanaato sharciga qabanay inay Turkiga u hiiliyaan maxaa arintaas day dhacay scenario wuxuu leeyahay taas inay dhacayso ma aaminsani waayo Erdogan waa nin caqli badan Erdogan ba amaan u galay sidoo Trump ku sheegay Erdogan Trump hadal ku sheega saxa waa nin caqli badan uu ka fiirsanaya dagaalka noocaas oo kale ma galay bal fiir mujaamalada waa yahay qodobka xiga barnaamijka mid kamida wadaadada Yuhuudda ugu afka dheer oo aan waxba qarin aadna loo dhageysto ayaa waxa uu sheegay hadalka ugu yaabka badnaa wuxuu yiri isagoo la hadlaya dadkiisa ma garanaysaan waan idin la wadaagi doonaa sababta Mareykanku uu noo taageerayo haddaan nahay Yuhuud Israa'iil haddaan nahay muxuu noo taageeraa Mareykanka budhay ma ahan danteena sababta ay u doonayaan inaan carabta uga guuleysano Falastiiniyiinta uga adkaano dhulkaan aan u qabsano waa danta Mareykanka budhay sababtoo ah Christianity-ga darteed ayaa naloo taageerayaa budhay diinta Kristaan darteed waxay aaminsan yihiin Kristaanka evangelistaha ah ee xisbiga Republicanka dhan ay aaminsan madhabkaas ama qaybtaas evangelistiga ee Christianity-ga in ay ayaga qasab ku tahay inay Yuhuudda taageeraan si Yuhuudda hal meel iskugu imaado mustaqbalkana waxay aaminsan yihiin buda halka meel ay markaan iskugu imaano in lagu gubo oo lagu baabi'iyo waa sidoo isaga leeyahay ma ahan buu dhahay dan anaga inuu noo sameynayaan wanaagna ma ahan buu dhahay iyaga saasay aaminsan yihiin wuxuu yiri waadna ogtihiin evangelistaha Republicanka dhan evangelista u badan iyagoo dhanna waxay u codayaan buu dhahay Trump bay soo saaraan iyo wixii la mid ah saa darteed arintan ma ahan buu dhahay arin sahlan bal ila daawo xaaladdu ma sahlan dadka way isla socdaan wayna kala socdaan sheekada ila daawo The Christians evangelists here in America, which almost all of them are Republicans, they're probably all going to vote for Trump.
and they are very pro-Israel. They are the ones that, thanks to them, United States always been with Israel in the last few decades. If you take out Christianity out of the picture, what United States had to do with Israel? The only things they are helping us is because of religion reason. But what a lot of Jews do not know is that they're not doing it for us. They are doing it only for themselves. Make no mistake. They all believe that once we will go back to the Holy Land and J.C. Penney will show up to redeem the world, he will put us all to be burned in hell. That's what they believe, because we never accepted him, and we won't accept him. So why they want to help us to take over Israel, to win against the Arabs, make sure the Jews go? Why they pay all these organizations that sponsor Aliyah? A lot of the people who made Aliyah, it's Christian money. All the airfare, it's all come from them. There's some Reform rabbis who have connection with them. They get hundreds of millions of dollars donation from them. Rabbis from Manhattan, from Texas. Why they are so generous? Why are they donating money to Israel? What do they care about Israel? The answer is because they believe the Messiah would come. They just have the wrong identity of the Messiah. That's it. They believe that it's actually JC. They never watch my debate with a Christian professor. They would watch it. wuxuu leeyahay dadkan waxaas waxay noogu samaynayaan waa dantooda. Waxay aaminsan yihiin markaan dhulka barakaysan tagno halkaas aan iskugu imaano, halkaas in lagu JC Benny uu imaado ama Messiah markuu imaado Ciise markuu imaado in halkaas annagana lagu baabi'in doono. waayo waxay aaminsan yihiin annaga ma aqbalin, waynu ogin aan aqbalaynin diintooda. saa darteed dadku qaar badan oo Yuhuudda ma oga buu yiri sababtana loo caawinayo ma ahan danteena dantooda ay iyagu ka arkaan wana Kirishtaanka darteed. haddii Kirishtaantiga waa sidoo isaga yiri, haddii Kirishtaantiga Mareykan ay iska jirin maxay annaga dan naga leeyihiin? waxba naga ma ajiib. waayahay qodobka ugu dambeeya barnaamijka, Iran waxa ay cambaaraysay shirka ka dhacay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara, halkaas oo madaxweyne Erdogan ku soo dhaweeyay qaar badan oo ka tirsan madaxda qaaradda Yurub iyo guud ahaan reer galbeedku ay ku jiraan Kanada iyo Mareykanka. intii shirka u socday waxyaabaha laga hadlay waxa ka mid ahayd xiisadda Iran iyo Trump oo eedeyn ballaaran u jeediyay madaxda reer Yurub oo uu ku sheegay inaysan Mareykanka garab ku siinin. guud ahaan dalalka NATO waa uu cambaaray, wuxuuna ku sheegay saaxiibtinimadii iyo filashadii inaan laga helin. qaar badan oo madaxda ka mid ah waxay u garaameen Trump, waxayna gar ku siiyeen eedeynta. waxa uu sidoo kale Trump ka hadlay dhaqaalaha badan ee uu NATO ku bixiyo Mareykanka in dalalka reer Yurub ay kala qayb qaataan lacagta ugu badan keligii aan lagu deynin. 80% waxa fundingka ama lacagta NATO bixiyo Mareykanka in dalalka kale ay iyaguna badiyaan. dhowr dal ayaa la sheegay inay wax ku dareen Canada, Spain iyo kuwa kale. iskastaba noqotee Trump waxyaabaha uu sida weyn uga cawday dagaalka Iran ayaa ugu badnaa, iyadoo la arkay luqadda dalalka NATO durbaba inay isbedeshay oo qaar badan ay sheegeen in Mareykan garab lagu siiyo in Hormuz mar dambe ay xirmin oo ay sii furnaato. ugu dambeyn Iran waa ay ka hadashay shirka ka dhacay Ankara, waxayna sheegtay inuu ahaa shir ujeeddo siyaasadeed oo gaara laga lahaa una ka duwanaa shirarkii hore ee ay NATO qabsan jirtay. diiradda waxaa la saaray Iran, qorshe ayaana laga lahaa bay tiri. waxyaabaha inta shirka uu socday dhacay waxaa ka mid ahayd in lagu eedeeyay Iran inay qorsheynayso dilka madaxweyne Trump ayna la doonayay in lagu dilo Turkiga, taasoo ugu dambeyn maanta Trump uu sheegay in sheekadaas oo dhanba Israa'iil ay u sheegtay. sirdoonkooda waxaa nala wadaagay bay dhaheen Israa'iilna nala wadaag liis dad la rabo in la dilo inuu ku jiro Trump.